gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha deegaanka Maxamed Xasan Jaamac Xoday oo maanta warbaahinta madaxa bannaan iyo kuwa maxalliga kula hadlay xafiiskiisa waxa uu ka hadlay hadallo maalmihii dambe la isla dhexmarayay oo ay ahayn in la iibiyay seeladii magaalada Burco. Maxamed Jaamac Xasan Xoday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee magaalada Burco hawlahaasi faahfaahinaya waxa hadaladiisi ka mid ahaa mashaariic horumarineed oo aan ugu talagalnay inaan degmada ka fulino. waxaanu shalay oo taariikhdu ahayd 28 bishii 2017 ka dhagax dhignay mashruucaan ugu talagalnay degmada Burco inaanu ka fulino oo laba sariibadood waaweyn ahaa oo mashruuc kasta uu ku baxaysay lacag dhan ilaa 130 kun ama 120 kun aan ka yarayn ka golo deegaan ahaan mashaariicda aanu ansixinay fulinteedii iyo dhagax dhigeedii baanu shalay dhagax dhignay laba mashruuc bay ahaayeen. mashruuc waxaan ugu talagalnay xere dhigtii hore halkii laga raray inaanu mashruuca ka dhigno. mashruucna waxaan ugu talagalnay inaanu ka dhigno maxay ahaydey meelo awalba ahaan jiray meelo lagu ganacsado oo aan garnaa oo ku yaala seylada inaanu dib u habeyn ugu sameeyno oo u ballaarino si dayac faraha badan iyo nadaafad darrada iyo maxay ahaydey adeega loo hayo bulshadu si uu hagaago. sidaa daraadeed wax kasta oo wanaagsan oo la qabanayo cid baa cadow ah, cid baan jeclayn, cid baan dantooda mooyaane danta guud eegayn. ciddaasaa marin habaabisay oo bulshadii meesha ku dhaqnayd ee xoolaha ku iibsanaysay iyo kuwii deganeyd iyo kuwii u dhawaaba u sheegtay in sayladii Burco la cunayo ama la iibsanayo. xildhibaan Axmed Yafire iyo xildhibaan Farxaan Cabdi Xirsi oo iyaguna ku helinayay gudoomiye ku-xigeenka ayaa iyaguna dhankooda sheegay inaanay suurtagal ahayn in la iibiyo seelada isla markaana shacabka ay uga mas'uul yihiin. anigu waxaan ka hadlayaa oo halkan ma shalay iyo maanta iyo ilaa daraata waxa ku jirtay seeladii waa la iibiyey. xildhibaanada seelada degan baan ka mid ahay. seeladu Maxamed Cali bay ka mid tahay. Maxamed xaq uu leeyahay in saribad loo dhiso waana u soo baxday waana loo dhisayaa waana dhismasaa. dad baa doonaya inay ka carqaladeeyaan ama xildhibaan ha ahaadaan ama dad kale ha ahaadaan. seelada Burco la iibinayo. seelada Burco waxay ka daawayntay Burco ayay ka daawayntay mid qof iyo laba iyo saddex iyo afar iyo council iyo laba iyo 10 midna ay iibin karaan maaha. waa mid ka mid ah asadka waaweyn ee xukuumaddu ay leedahay. waa mid aanu shakhsi lahayn, waa mid aan qof lahayn, waa mid aan reer lahayn. waxay ka mid tahay asadka dawladda Soomaaliland ay leedahay, shacabka reer Soomaaliland leeyihiin. geesta kale waxaa warbaahinta madaxa bannaan ay booqdeen seelada xoolaha ee magaalada Burco ay ku ganacsanayeen bulsho badani. Axmed Jaamac Axmed Digiro telefishinka caalamiga SBC magaalada Burco.